Assalaamu calaykum kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo video cusub maanta waxaan sameynaynaa yogurt marka waan bilaabaynaa caano litir baan isticmaaloyaa waa 3% iyo wixii ka badan isticmaali kartaa caanaha lo'da toos loo keenay okay waaye dabka ayaan saaraynaa waan karkarinaynaa marka caanaha ilaa ay ka karkaraan isticmaal qaada alwaax haddii aad heli karto marka digsiga sidaas ugu dhagina waa walaaqaysaa markasta ma karkareen hadda marka dabka waan ka daminaynaa ka bacdina gees ayaan dhigaynaa si ay u sii xoogaa u qaboobaan marka waxaan rabnaa in ay xoogaa temperature-ka hoos u dhaco ilaa ay ka tagaan xoogaa diirimaad marka waxaan sameyn doonaa farta ayaan ku tijaabin doonaa marka haddii aad hot uli kulul yihiin oo kaadinaysaa haddii ay xoogaa qandiir yihiinna processka ku soconaysaa baaquli nadiif ayaan caanihi u bedelaynaa si macnaha culture-ka ugu sameyno hadda marka waxaan soo qaadanaynaa yogurt si caanihi ugu khamiirino marka yogurt intaan caanaha weyn aadan ku darin xoogaa marka hore caano yar inta ku shubto qas si macnaha si fiican uu iskugu milmo kadibna caanaha kale ayaad u geynaysaa marka yogurt-ka wuxuu ka dhalanaya waxaa waaye ceertan yarta ee yogurt-kan yarka iyo caanaha kale weyn oo la isku daray marka caanihi hadda ku kordhinaynaa ka bacdi hal mar si fiican u walaaqaynaa kadib waxaan sameyn doonaa dabool ayaan saaraynaa straasho ayaan hoos uga dhigaynaa si xoogaa qandiirka uusan uga baabi'in iyoon qandiirka because qandiirku ka dhalanaya yogurtka korka ka dabool korna waxaad ka saartaa shukumaan iyo wixii maro weyn oo u celinayo xoogaa qandiirka because waxaan rabnaa inuu qandiir ahaado si macnaha culture-ka u sameysmo sida uu yani yogurtka u bilaabmo marka straashooyin badan korka ka saar ama maryo badan oo culus oo kuleelka celinaya waxaan sugaynaa 6 ilaa 7 saacadood marka hadda waan fiirinaynaa haddii uu yogurtkii sameysmay sida ujeedaan wuu adkaaday marka yogurtka wuu hagaajimay marka processkii si fiican ayuu iskugu dhacay oo ujeedaan wuu adkaaday caanihii yogurt rasmi ayuu noqday marka hadda waxaan sameynaynaa finjeerka ayaan gelinaynaa ugu yaraan maalin ayuu ku jirayaa marka maalin iyo wixii ka badan maalinta ka dambeyso uu finjeer ku sii jiro sii macaanana laakiin hal maalin sug kadib ayaan isticmaalaynaa si u hesho macaan dhadhan fiican si uu u yeesho marka hal maalin ku hay finjeerka waa ujeedaan siduu u qurxanaaday maalin kadib marka aniga geedkaasaan ku isticmaalaa waa qamadi la burburi oo loogu talagalay qurac ahaan yogurtka in lagu cuno iyo sabiib waxbaa ku jira marka strawberry aan ku darsaday marka waa qaabkan u isticmaala aniga qurac ahaan waa u cuni kartaa casho ahaanna waa u cuni kartaa dadka iscaateyna aad ugu fiican yahay waa mahadsantihiin waxaan rajeynaa inaad ka hesheen kulanti dambe oo xiiso leh